عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا مركلة جنال كيجا أين جنبي ما تحرر أرين إنك كحلو أو بدن كان دلك النور أن دلك النور يكون على هاي وأنا ير إلى هذا الجوجا مركز دلك النور أرين كده على الشيء ولي بمجال ده هاي مل سمنس لا ده هاي أو بحكوا تاشا قبل كا أما بحكوا تاشا استافانجر مش لا ده هاي كتاشا قبل استافانجر مجالنا سمنس على ده مركا sheekada marka waxa waaye waa nin weyn adi lixda meeyadi ku jiro oo hadda dambi baaris uu ku socdaa dambi baaris waa la baarayaa shimbir uu dilo daraadeed waa adiga daawada waxa laga yaabaa inaa isdhahdid yaa shimbir xabsi isku geenay ma jirto shimbir oo kiis isku furaayo oo kiis dil oo la baarayo ma jirto ha way dhacdaa sababtana waxa uu soo qaatay sababta videogan hadda ka hadlay videogii kale qofkii soo daawaday oo libaaxa hargeysa loo dilay maskiinka ahaa ya ma arkino waxa yidii raba inaa ka daawado yani xaquuqda bini aadanka ma arkino wadamadan qurbaha ay joogna sida xayawaanka bini aadanka iska dhaafay xayawaankii aad far saartid xabsi mudanaysa marka qisada maxay ku saabsan tahay nin adi 6 meeyad saani sheegayba oo shimbir dilay oo hadan kiis dil loo furay ila daawad walaalayaal okay marka qisadan waxa ninkada 6 sano jira banaanku joogay sida markino journalka uu qoraayo ninkan maxay ahayd waa maalin sabti may axad ahayd walaalayaal maalin axad saacadana maxay ahayd 2 barki ama 8 saac bar ama 2:30 ama adigsi ama hal tire ana ka dhaxna waadi labadii barkiiba dhehbo labadii barkiiba 8 saac bar banaanku joogay baad qanaa marka wadamadan oo nabada ama wadamadan oo qurbaha ama meelaha iska fiican rootiba soo qaaday cunto soo qaaday rootiba soo qaaday shimbir uu qaybinay just like what then like qofka arkina oo ma arkino Soomaaliya ama Afrika joogo Afrika badan ma arkista cunto wala siyaala ku yaryihiin laakiin filimaan hada waa laga yaabaa inaad ka daawato marka filimaanta markino badan dadka cadaanka rootiska qaataan dadka kalaba cuntada meesha ugu daadayaan shimbiraha adoo iska fadhiyo idina waa ajir fiican qofkii ma arkino rootiga u fiican cuntooyinka kale waxyaalo kale leeyna u dhiman kana rootiga qaleelka waliba daa guriga ku sameeysid rooti oo natural oo wax chemical ama caadi fresh ah sameysay inta qaata jiljileeca ugu jiri kartaa ama cuntooyin gaar ah leeyina jiro marka ninka wuxuu sameeyay meesha iska baashaalay rootiga uu qaaday cunto u qaybinay shimbira ay nooca kalimid noocan shimbirta mooke yaa dhahnaa af Norwegian-ka Soomaaliga ma aqaan sababta aniga yara Soomaaliga ka soo tagay marka ma xasuustay shimbirta ma aqaan inaa qabna in kala hataa laakiin waa soo ogaan doonaa insha Allah shimbirta mooka laaw shimbiraha kale way ka xoog badan taxoogaa wayna ka weyn tahay wayna ka duuleysaa yani marka duuleysano way ka sareysaa kuwa kale marka shimbirta laakiin dhulkana way joogtaa way dabaaltaa markay rabtana way boodtaa waa isku jirtaa biyaha iyo banaanka waay shimbirisi loo siinaa cuntadii ninkii soo joogay muxuu arkay hal shimbirahaas mookaha la dhahayo ama masuurkeeda intaan soo dhigi doonaa hal kamid wuxuu arkay cuntadii ka boobaysa shimbirihii yaryarka ah oo kaleeto ninkii baladana cuntadu sii qaybiye markaas way ka qaadanaysaa markii dambe cuntadii agtiisa daasho cunto agtiisa ku tuuray soo dhaweeyay shimbirihii kala qaadan raba u dhadhawaay ka qaadatay ninkii way ku kacdayba markay ku kacday shimbirtii soo qabtay qoortii ilaa qoortii qabtay biyuhu ku tuuray meel yar wuxuu joogay wabi yar biyuhu ku tuuray shimbirtii xoogii uu qabtay iyo biyuhu ku tuuray u dhimatay miskiinta horta wallahi waa wax laga naxaa horta sababta xayawaan maskiin inaad dishid inna lillahi raaji'uun bini'aadamka waxa ma leysa inuu naxariistiba naga tagto wallahi bila waa waxa videogan hadda niidahay video kale hadda ka horeeyay kan oo Hargeysa oo ma taqaan Hargeysa libaaxi loo dilay maskiinka oo qalad isiga yani wuxuu cunahaa laakiin ma fahmayo qalada gashay ma fahmayo dad baa cuntay marka shimbirta video ninka xarabi inaan ituso wala video hore qofkii soo dhageystay inuu kana dhageysto sababta wadamadan ay joogna xayawaan hata yani ani waa ku raacsanahay runtii xayawaanka nafla waay xayawaan hata farsaarta xabsiba loo geeni ama lacag bixinaysa sharci ma inaad dishid sharci ma inaad wax dhaawac gaarsiisid waxay taasna ku tusaysaa bini aadanimada iyo xuquuqda animalka ama xayawaanka Soomaaliya waxa iska dhaafay xuquuqda xayawaanka tii bini aadanka ma qabo
بين حتى سوماليا أما أفريقيا بكسو قاد especially أفريقيا ولي هاد سوماليا راسبته ستيل وطنك اسكو قسني هاي ماشان ولي هاد وطنك مدقنا سي عن وحالو يري كوميديا قصل سمينها waxay dhaheen waana run laakiin waxay ka hadlayaan waxay dhaheen Soomaaliya in koob shah yaanya reexan kana yaanya mirole markiro yaanyada ina soo gadatid iyo madax binaadar in loo keeno madaxa ka raqiisan yani qof intii soo dilay in madaxiisa qof inaad dalbatid oo la soo dilo loo keena iyo yaanya ina qof u dirsatid madaxa ka fudud oo raqiis waayo waa lacag laan baa lagu diliba qof dhaahan marka adiga fiiris wadamadan qurbaha adiga fiiris America Canada Yurubta ani hadda Norway ay jooga xayawaanka shimbirahaas banaanka maray farmasaari kartid ma badili kartid meeshooda iska ka marayaan meesha marka qaarkood waxa dhacda hadda meelaha laga adeegto ama shopping mallka ama suuqa agtaada marmarayaan ma dhinacaas inta joogaan inta le ka maray bas iikana ma arkin ma ku soo aaday meeshooda marayaan hadda cunto kuuga arkaan laga yaabaa ha marka ninkan hadda wali kiis dila hadda loo furay wali go'aan lagama gaarin wixii loo sameeyay laakiin booliiska kiisa ku fureen waxa la yiri dhaawac shimbirta saasta u qabatay biyaha ah ku tuurta qabowga ahaa yaa u dhimatay marka waxa la yiri kiiskaas waa kiis noo yaala la yiri waana laga shaqeynayaa dambiilana taha la yiri laba mid ay noqonaysaa sida aan dalka Norway badanaa la joogo dadka xuquuqda xayawaanka ما laga mara male way adagta daadishid wallahi xabsi baa loo geeni ama lacagna waa bixinaysa xabsina loo geeni yaanyuur sidoo kale iskaraaf inaad dishide ana yaanyuur ay joogto bulacna way joogaa bulac dhalada ku jiraaba laakiin yaanyuurkeyga wiil waay yaanyuurkeyga taadaha laba isbuuc fasax aada waa maqnaana waa ina qof kala dardaarma oo dhaha fiiri maalintii hal ama laba jeer soo fiiri banaanka albaabka u fur soo xaray cunto iyo biyaha iisi waa ina dhaha laakiin inta yaanyuurteeda guriga ku xira ka dhaqaaqa dariska haday arkaan yaanyuur nyaaw ku heeso oo meesha ku jirta laga tago waxa dhacay nin sheega booliiska waxa iyo animal protector iyo kuwa xayawaanka naftooda difaaca ama ilaaliyo ka dambo horta anoo dhaqeer mas'uul aliga dhiga qeyr mas'uul number 1 aliga qora number 1 waa ligu dhijiyo bashqadsh yani istanbul ligu dhijiyo waxa la yiraahdaa qeyr mas'uul xayawaan kale ina soo wato iska dhaafe waxaba halis kala ayabo ibna yar adaa haysata in hada child service ku soo fargishtaan sababta xalay qof xayawaan miskiin albaab ku xira ka tagay cunugan wuxuu ku sameyn karaa ama xayawaano kale ee wiliga ma soo wadan kartid mana Soomaalka ma soo gadan kartid marka arintaas waa maanta hada kiiskan meesha ku dhamaadan waan ila socodsiina ninka oo shimbirtan mookada la dhahay dilay miskiinta sababtoo waa kuntu daraab ciid laga dhigaa laakiin qalad waa in xayawaanka la dilo idinkana ibnihiina bara walaalayaal in xayawaan shimbir banaag joog inay dhagax ku tuurin inay ku istaagin inay ciirinin banaankaas iska manaan waa arka badanaa ibnaha badanaa qaarkood iska jecel inay shimbirta dhagax ku tuuraan inay qabtaan inay ciiriyaan laakiin asameyn ka dhaaf idinka bara xayawaankan xaquuq u leeyahay naf u leeyahay adibina marka walaalayaal intaas way wixii oo markino oo soo cusboonaadana waan idin soo socodsiina insha Allah laakiin muhiimada aan rabo inaan sheego xayawaan in la dilo ma aha naftaada u baqdid laakiin xayawaan naftaada dhaawac gaarsiineenin adii ka carari karta ka carar kuwa xayawaano waxa jira barnaamijka oo xayawaanada ka shaqeeya kuwaas wixii karta adii kara iga soo gaara masa inta jooga iga qabta albaabka ta ku soo xir hado booliiska waa loo caawinaa naftaada halista halakadii halis asmeen walaala waana ku maasan tahay videogan ilaa hadda daawanaysay adii keesho walaal like iyo subscribe noo saar free le wala lacag oo furitaan oo furin dhacle ku sii kambalka inta didid mujida bium ku dhufa share kana saar si walaalaha kale tan ee ka uga faa'iideystaan oo ku maasantiin dhageysigiina walaalayaal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh